sida rabbiga ka doonaya adigu yeel nolosha adduunyada ilaahay ba ku fudaydin ma fahmi waayay nolosha adduunyada markaas wallahi nabigeenu sallallahu alayhi wasallam meel yar buu naga tusay meel yar xadiis fi sahihayn meel yar fi sunan saxaabi baa nabiga u yimid oo ya rasuulallah markaan ilaahay aan baryayo salligaaga ducadeeda markaan afar u qaybiyo qayb baan ka dhigay ka waran buukay markaa uu nabigu ku yiri waa khayr hadaad ka ziyadisaasay ka si khayr badan bal xadiiska dhageysta markaa saxaabiga yiri marka loo qaybiyo salligaaga qayb baa ka dhigay labana de anna bashar baa muraadkiisa ilaahay u sheegan markaa uu nabigu waa khayr fa yazidta fa huwa khayrun laka hadaad biirisana kaga si khayr badan markaasuu yidhi saddex markaan u qaybiyo laba qaybood salligaagaan ka dhigi midna anaa baahidayda ilaah u sheegan waa khayr buu nebigu ku yidhi haddaad ka siyaadisaase kaaga khayr badan haddana wuxuu yidhi sidaas markaasuu saxaabigii yaabo wuxuu yidhi hadduu arrinku sidaaba yahayba ducadaydii dhannayd ba intuun halkaa iska dhigo ayaan salligaaga ku bilaabi salligaagana ku dhammayn markaa buu nebigu ku yidhi idan tukfaa hammuka wayugfaru laka danbuka bukay haddii markaad gacmaha ilaahay hor taagto ducadii dhannayd aad salligayga ku bilaabdo salligaygana aad ku gebagabaysidba waxaa lii wixii adduunyada hammi aad lahayd oo dhan waa laguu qabtay waad heshay dembigaagina waa la dhaafay buu rasuulku ka yidhi sirta noloshu ma tahay sama halkaas laakiin indhihii lagu arkayay allah ka siiyo indhihii khayrka lagu arkayay ee quraanka lagu arkayay ee salliga nabiga lagu arkayay qiimihiisa ee ducooyinka nabigu nasiya lagu arkayay indhahaas waa indhaha qalbiga allah inoo furo waxa uu nabigu ninka ugu jawaabay bal dhageyso haddii ducadaadii dhannayd aad salligayga ku soo koobtid adduunka dusheeda wixii hammi humuum aad lahay hammiga bini aadamka adduunka waa laba weeyaan mashkalad haysata uu xal u raadinayo iyo xaajo uu leeyahay oo cid u qumisa uu doonayo labadaaba wada heshay buu rasuulku ka yidhi aakhirana ma taqaana qofka muslimka waxa haysta wuxuu ka aakhira markii la hor joojiyey ilaahay waxa uu ka cabsi qabaa waa maxay war muxuu ka cabsi qabaa waa dembigina waa lagaa dhaafay buu rasuulku yidhi waa salligii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayuu nebigu noogu sheegay sirta adduunyada nolosha inay halkaa ku jirto ee sirtii aakhirada adduunyadana wixii hammi aad lahayd oo dhan hammiguna waa labada ay dhegaysto waa niigu celine waa mashkilad ku haysata adiga oo xal aad u raadinaysid iyo xaajo aad leedahay oo cid kuu qumisa aad doonaysid ilaahay baa kuu dabooli mashaakilkiina ilaahay baa kaa faydi xaajadaadina ilaahay baa kuu qumin aakhirada hammiga ugu weynee qofka muslimka hor yaalla uu qof walba ka baqayana waa maxay waa dembigiina waa lagaa dhaafay buu rasuulku waa salliga nebiga فنكسر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سلقي سام بدنينا سلقي سوى مناجات علماء الإسلام قالوا وحيد هذا ما ذكرك إله إلا حصايا فل بدن مثل سلق النبي عليه الصلاة والسلام قال عياض رحمه الله في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى وحقوق شيء صلق على سكر عين فل بديه ما الدليل على ذلك بالويري وحيد هذا العلماء فقهاء هاي إلهي نورانية دوسية سبحان الله مركات تراديد بالنبي يقولي قيد بالجنة لقاقا بيرا الحمد لله مركات تراديد قيد بالجنة لقاقا بيرا لا إله إلا الله مركات تراديد قيد بالجنة لقاقا بيرا الله أكبر مركات تراديد قيد بالجنة لقاقا بيرا ولكن سلق النبي قصة النقو من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات نيكا مر يقول صلي يا ابو النبي يقولي إلهي نحريسي درجات إي ويدية إساقنا 8 جرب إلهي ونحريستا قيد جنة لقاقا بيري هي 8 جرب إلهي كون نحريستا كيف النبضة لذلك نكثر صلوات النبي عليه الصلاة والسلام وإن صلق النبي نبضنا وإن المناجات ساعدها ضمبين إلهي لم مناجون إنه وإن النبي كصلنا عليه الصلاة والسلام وإن نوحي النبي كوينا إنك وين نقوينا ذلك